xanuun kasta iyo dhibaato kasta waxay bixisaa cashir, halka cashir walbana uu qof bedelo. hadday fududahay inaan dadka kala xukmino khaladaadkooda, waxaa adkaata mar walba inaan khaladaadkeena aragno. qofna xaq uma leh inuu ku xukmiyo, sababtoo ah qof og male xaaladda aad ku sugan tahay. laga yaabaa inay sheekooyin kaa maqlaan, balse marnaba ma dareemi karaan waxa qalbigaaga ku jira. guushu mar walba waxay hab kugu siisaa meel barayfeed ah, laakiin guuldarradu waxay kugu dharbaxdaa dadka dhexdooda. nolosha ayaa basaasiska ah. farqiga u dhexeeya iskuulka iyo nolosha ayaa ah, iskuulka waxaana lagu baraa cashiro, kadib waxa nala siiya imtixaan, halka nolosha marka hore nala siiya imtixaan kaasoo cashirna bara. ka fogow mar walba dadka aan qiranin khaladaadkooda, kuwaasoo mar walba ku dareensiiya inaad adigu aad khaldan tahay. qofna ku khasbin inuu ku soo xasuusto mar walba. aayar iskaga aamus, iska dhaaf, iyaga ha dareemaan noloshoodu siday tahay la'aanta. haddaad guuldaraysato ha isdhiibin, sababtoo ah guuldarradu waxay ka macnaysan tahay isku dayga koowaad ee waxbarashada ama aad wax baranayso. gebagabadu ma aha gebagabo, xaqiiqdii waa dadaalku marnaba ma dhinto, yacni meel cidlo kuma dhaco. haddaad jawaab ahaan u hesho ereyga no, ogow no waxay ka micnaysan tahay next opportunity, oo ah mar walba jaaniska cusub, jaaniska xiga. ha isbarbardhigin noloshaada qof kale, sababtoo ah sina la iskuma barbardhigo dayaxa iyo cadceedda, sababtoo ah mid walba wuxuu iftiimaa wakhtigiisa gaarka ah. dad rabta inaad noqoto qof guulaystay, uma baahnid weji qurxoon iyo jir weyn oo libaaxnimo ah. waxaad u baahan tahay khibrad maskaxaysan iyo inaad baafoom garayso. tababar maskaxdaada si aad u aragto wanaagga wax kasta, wanaagga xaalad kasta. waalidkiga fikirkaaga waxa uu noqonayaa waalidkiga noloshaada. laba shay oo la rabo mar walba inaad xasuusanaato waxa weeyaan inaad ilaaliso fikradahaaga iyo fikirkaaga markaad keligaa tahay, iyo inaad ilaaliso hadalladaada markaad dad badan ku dhex jirto. argoosiga ugu fiicani ma aha argoosi, waa inaad mar walba sii socoto ood faraxsanaato ood qofka iskaga tagto. imtixaanka nolosha ugu adag ayaa ah dulqaadashada iyo sugitaanka wax walba xilliga saxsan. diidmo qayaxan oo cad ayaa mar walba ka fiican ballanqaadyo been ah. marnaba ha joojinin inaad wax barato, sababtoo ah noloshu ma joojiso inay wax ku barto. noloshu waxay fududaataa markaad barato inaad aqbasho raaligelin aadan weligaa helin. yacni markaad raaligeliso wax aadan filanaynin, dad aadan ka filanaynin. qofna ha ku qoslin weligaas, sababtoo ah marna ma ogid inaad adigu is arki doontid adoo qofka xaaladda uu markan ku sugan yahay aad ku sugnaan doonto. samirka darisiyo fadhiga dayro okaa dainkan ducadi abale dawaayi kalgacaylka docdada sadadalabiyo xidhatuubo. samirka darisiyo fadhiga dayro okaa dainkan ducadi